ayadoo guud ahaanba Somaliland ay ku habsadeen abaaro ba'an ee maanta TV-ga caalamiga ee Somali News waxa uu ku galay xaaladda abaareed ee ka taagan deegaanada Garney iyo Tuulo Gumbuur oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Sheekh ee xarunta gobolka Saaxil halkaas oo aanu ku aragnay xaalad abaareed oo aad u leedata waxaana dadka deegaankaasi farabaan ku haya biyo la'aan baahsan taasoo ay naftoodii ugu jirto khatar biyo la'aantaasi deegaanadan ayaa waxay ka mid yihiin deegaanada aan helin muddo 2 sanadooda wax rooba dadka deegaankani ayaa waxay baaqayda dhaana u direen xukuumadda Somaliland iyo ummadda Islaamka iyagoo kala codsaday inay si degdeg ah ula soo gaadhaan caawimo biyo iyo baadba waxa kaloo dadkaas ay sheegeen in xoolihii ay manfaacadsanayeen ay ku dhow yihiin inay gaajo iyo macluul u dhamaadaan waxayna indhaha ku qabanayeen dadka oo daraamo la taagan wadooyinka si gaadiidka maraya wadooyinkaasi ay ugu shubaan biyo waxaana la kulanay odayaasha iyo waxgaradka deegaanadaasi oo nooga warramay xaaladda biyo la'aaneed ee ka jirta goobtani iyagoo sheegay in biyo la'aantu ku hayso farabaas sidoo kalena waxay dadka deegaankaasi sheegeen inay guud ahaanba baraagii ay biyaha ku shuban shireen ay dhammaantoodba ka dhammaadeen biyihii isla markaana ay dadka isku laynayaan goobihii ay ku soo hadheen gorgorka biyahii waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tani si kastaba ha ahaatee deegaanadan ayaan helin wax caawimo iyagoo xukuumadda Somaliland ka codsaday inay tixgeliso codsigoodan ay soo mariyeen meediyaha taasoo ay sheegeen inay dadka deegaankana ay halis ugu jiraan inay u dhintaan biyo la'aan abaar guuna oo 2 sanadooda inay dadka biyo ka dhamaadeen xoolihii ka xumaadeen dadkaasi inuu u baahan yahay gargaar Ilaahay iyo mid bilaadanimaba u baahan yahay waxaan u sheegayaa dadkani abaar baa haysa abaar iyo biyo la'aan laba jibaara oo ku qaraxday dad iyo xoolaba oo 2 sanadood iyo dheeraad haysay xoolii way jirceen xanuunana way u heliyaan dad ay ka dhamaadeen oo iminka magaalada ku soo ururo ku soo xirooday wuu jiraa dad isdaaf sameeyay marka xoolii ka dhamaadeen way jiraan oo way arkeen inamada noo soo dirteen waxa weeyaan Ilaahay baa wax bixiya laakiin waxaanu leenahay madaxda iyo deeq Ilaahayba intaba waxaanu baryaynaa in si degdeg ah dadka loo soo gaaro ka jirta abaaro biyo la'aan baad la'aan xoolihii ay xanuunsanayaan oo xanuun hayo maanu arag wax caafimaada wax mas'uula iyo wax dawladda inta bataa ku noolayn beerihii meeshu waxa weeye oo beeraley iyo badantay beerihii beer xaraad bay ahayd roobkii uu yaraaday imka 2 sano roob mu helin sidaa darteed wax ka baxay ma jiraan wax kaydo haru oo laana ma jiraan waxa joognaa tuulada la yiraahdo Tuulo Gumbuur waxay ka mid tahay degmada Sheekh waxa xukuumadda gobolka Saaxil tuuladaas waxa u dhaaminaysa noohadaas u dhaaminaysa jirikaamadaasi biyo ku soo dhaansadaan wax cid gurmada oo dawlad iyo shacab toona midnaba ma helin waa meesha jirikaamada sadacaysa maanta dadkaas waxay kaliya ugu jiraan jirikaamada yar wixii naftii ay u cabi lahaayeen baanay haysan waxaan sheegaynaa ummadda Islaamka ee Somaliland qolada abaaraha dawladda shacabka cidii ka naxaysa islaamaba inay soo caawiso dadka masaakiintii nooha u dhaaminaysa hadday booyad xitaa haystaan maanta saas may way dhaansan lahaayeen jirikaamadaas nooha soo dhaaminaysa waxaasoo dad waxay u tiban yihiin iminka jirikaamada inay afkooda ku cabaan bal xoolina dawlad faraha laga qaaday dadkii baan biyo haysan gobolka Saaxil ee ugu dhaqaalaha badan Somaliland ee ku taala maandhawood waxaan maqlaayay marka baa yimi caawima in la yiri soo mabalaha Saaxil
وردت كير ساحل وادت كنوع عاص نكير ساحل ما أنت كنا حيو ساحل واتا إنه هو يكون عامين أيام ومحمد علي أحمد كابه ورقة تلفزيون عالمي الصومالي نيوز مغرب الشيخ.